السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كمان مبارك صاحب الحكينا أنا قاعد مقدمتي مقال كان هو مقال كيس هذا كسمينا من شركة ليكويد ماركت سوحوga muuqaalkan waxaan ku saari doonaa kii qaabka isku diiwaangeliyay weli adigu qaabka sida discount helayo waxaan xusid mudan haddii linkiga iska diiwaangelisanaad qaabka sida discount helayso so haddii aad telegramkeeni ku jirin muuqaalka ka daawanayso telegramka soo dir si halkaani tradeska dhammaan shirkadaha aqoonka ugu haystay kuwa Soomaaliyeed ee halkan trade areaska iyo kula wadaago shirkadaha kale platformska hadda adigana ka mid noqoto so ugu horreyn waxaa sameysaa linkiga descriptionka kusoo dhigi doonaa haddii kalena telegramka soo dirtana waad kala xiri kartaa youtube kuwadna waa soo dhigi doonaa ugu horreyn waxaa sameyn doontaa linkigan ayaad qaadan doontaa oo sidoo kale youtube descriptionka ayagana linkiga kusoo dhigi doonaa linkigaas koobi gareyso linkii markaad koobi gareyso kadib waxaad u diraysaa qaybtaadii chromeka ahayd ee caadiga oo waxaan dhigaynaa basta ayaan leenahay si aan iskaga diiwaangelin linkiga si 5% discount adiga aad u hesho lacagtana ay kaaga yaraato so akoon walba aad ka qaadato xaggooda waxaad ku heli doontaa 5% discount marka laga reebo akoonka keliya ee playerka loo yaqaano ee ka door la galayo masa subscription laha maadaama akoonkaas qiimihiisu aad u yar yahay wax discount aan la diiwayaan maadaama akoonka qiimihiisii keliya $50 uu yahay waxaad si toos u tegaynaa qaybta ku qoran tahay get start waxaan bilaabaynaa isdiiwaangelinteenii soo ka hor intaan isdiiwaangelinta bilaabin keliya wax lagaa rabo waxa waaye passport inaad haysatid ama driver license inaad haysatid haddaad gobolka banaadir dhalashooyinkii kuwa puntland waxa haysatidna anaa ka caawinayo soo telegramkeen kusoo bir aniga kugu horreeya soo hadal kadib anaa ayagu sii gudbinaya sidoo kale waxaa kaloo lagaa rabaa bank statement ama proof residence waxa la dhahayo sida caadi brokerada kaa qaadan oo meeshaad degan tahay wax caddeynaya waxaa isticmaali kartaa bank statement iyo premier bank ahaysatidna premier walletka dhexdiisa bank statementkiga dhexda dalbato adresska meesha ku qoran ayaa bank statement ahaan ama proof address ahaan u isticmaali kartaa so gadi saart ayaa leeyahay oo isdiiwaangelinta ayaan bilaabaa so intaadan isdiiwaangelinta bilaabin xusuusnaa linkii inaad soo qaadato haddii linkiga soo qaadan daadminaysa waxay tahay 5% discount ma helaysid so hadda waxaan ujeednaa qaybtii koowaad oo isdiiwaangelinta joognaa oo 10% ka mid ah ayaan hadda buuxinayaa so marka waxaan sameynaynaa emailka registrationka aad ku sameynaysid iyo xogtaadii ayaa halkan geli doontaa so emailkaygi aniga hore iska diiwaangeliyay laakiin waxaa rabaa inaan idin tuso emailkan isku diiwaangelinayo si idinka aad adinkana u aragtaan oo aad marka iska diiwaangelisaan wadankaad kasii dooranaysaa wadankaad kasoo jeedid soomaaliya leedahay soomaaliya kuu soo baxayo kadibna waxaa leedahay to complete registerkaas ayaad taabanaysaa si toos ah ayaad isku diiwaangelinaysaa oo markaan email ayaa kuu soo dhacayo emailkaasoo lagugu sheegayo inaad iska diiwaangelisay liquid market si saaxiibayaal saa ujeediin waxaa imaanay qaybtii labaad oo isdiiwaangelinta oo waxaa ujeednaa 20% ka mid ah inaan hadda marayno haddii dib u fiiriso waxaa meeshan ka arkaysaa in email ii soo dhacay emailkaasoo caddeynayo inaan liquid market iska diiwaangeliyey so stepkii kale axiga aan marayna waxay tahay ma qof xayeysiin aan u sameeyo shirkadaan rabta aad tahay mise trader oo dana akoonka qaadatay inaad rabtaa so aniga waxaan rabnaa inaan trader noqono oo aqoomaan ka qaadano aqoonkoodii aan ka trade garayno so qaybtan trading badan ayaa ka dooranaysaa oo qaybta trader ay ku qoran tahay si aad aqoomankoodii u hesho sida ujeedin saaxiibayaal wuxuu nagii qaybta xigo oo waxaa ujeednaa isdiiwaangelinteeni 40% ka mid ah inaan aqoomankii inaan 40% ka mid ah aan isdiiwaangelintii aan soo sameynay sidoo kale wuxuuna siinayaa laba option oo ah one time fee ma rabtaa mise aqoomanka subscriptionka rabtaa one time fee waxaa iskugu imaanayo dhammaan aqoomanka evaluationka ee kuwa challenge lagaa qaadayo one time one fees challenge iyo aqoonkii netraha kana waxaa iskugu imaanaya dhammaan aqoomanka subscriptionlaha midka high leverage iyo midka low leverage so aniga waxaa leeyahay midka subscriptionka rabaa adiga midkaa rabtid dooro markaad isdiiwaangelista one time ka rabtid one time ka dooro haddii aad subscription laha rabtid subscription laha dooro so optionka adaa iskale mar walba so waxaan ujeednaa qaybtii kale inaan hadda imaanay oo sidii mar labaad wuxuu noo kala saaraa hadda leh nooca akoonka aa rabno high leverage ma rabtaa uu leeyahay mise low leverage aa rabtaa uu leeyahay so aday kugu xiran tahay oo horaan kugu soo sharxay aqoomankan iyo qaabka u shaqeeyo iyo leveragedoodii so aniga waxaa leeyahay low leverageka ayaan rabaa inaan iibsado so low leverageka ayaan sii balanka sii dooranaya si aan stepka xigo aan ugu sii gudbo maadaama stepka hadda aan joogno 60% uu yahay so stepka xigaan marin doonaa oo low leveragekaas aan dooran doonaa
kadib waxaan kuu soo bixi doonaa low leverage-ka koobanka low leverage-ka midka aad ka rabtid tusaalahaan midka 5k-ga ah midka 10k-ga ah midka 20k-ga iyo midka 40k-ga so mid alaale midkaa rabtid ka dooro tusaalahaan aniga waxaan leeyahay midka inaan iibsado waxaan u baahannahay 40k-ga oo $380 ah so kaas ayaan rabaa inaan iibsado ayaan leeyahay sidoo kale waxaan kusii tusi doonaa sida aad discount 5%kii aad akoonkan u heli doonto markii aad linkiga iska diiwaangeliso so akoonkan ayaan dooranaya oo buy now ayaan leeyahay si akoonkii aan u iibsado oo waxaa ujeedaa almost 80% ka mid ah inaan isdiiwaangelinteedii aan soo dhammaystirnay halkan wuxuu kugu soo qoraa akoonkii faahfaahintii qaacidadiisii poliskii lagaa raba waqtina ku dhumiyo mar hore ayaa ugu soo sameeyey muuqaal so waxaa ujeedaa akoonka qiimihiisana $380 bishii laga rabo marka waxaan sameynayaa buy now waa leeyahay si akoonkii aan u iibsado saaxiibal saa ujeediin wuxuuna keenay qaybtii iska diiwaangelinta ama billing detailska gelin laheeday xogtaaga iyo magacaaga yaa gelin laheeday so intaanan halkaas usii gudbin waxaa rabaa ugu horeyn $380 laga rabo in aan discount helo oo 5% discount aan helo waxaad imaanaysaa telegramkeenii waxaad koobi leedahay link coupon code-keenii inoo gaarka ahaa ee aad discount ku heli laheeday kadib waxaad ku tagaysaa meesha coupon code-ka waxaad leedahay paste kadib waxaad leedahay apply coupon code oo halkan waxaa rabnaa 380kii in lacaga nagala dhimo oo 5% qiimo dhimis ah ee noo sameeyaan si aan akoonkoodii ugu gadano so sa ujeedid wuxuu leeyahay coupon code applied successfully oo waxaa arki doonaa qaybta hoose lacag bixinta markaan imaano in lacagtii wax nagala dhimay ay lacagtii discount-kii meesha inoo soo gashay oo waxaa ujeednaa hadda lacagtii akoonkan laga rabay sida saxda ahayd $380 inay tahay markii coupon code-kii aan isticmaalnayna inoo gaarka ahaa $19 nagala dhimay $361 keliya aan bixinayno so linkiga aad iska diiwaangeliso waxaad ka faa'iidi doontaa inaad 5%kaas aad hesho so xogtaana buuxinaa kadib ayaan isku soo laaban doonaa ama waxaan samayn doonaa magacaaga ayaa gelinaysaa last name-ka ayaa gelinaysaa kambaniga muhiima waa ka tagaysaa waddanka aad joogtaa gelinaya adresskaagii kulli dhammaan xogtaan aad gelinaysaa meeshaad ka joogto post code-kaagii phone number-kaaga aad gelinaysaa kadibna waxaan samayn doonaa qaabkii lacagtii aad ku iibsan laheeday ayaad meeshan gelinaysaa oo sidoo kale orderka waxaad ku dalban kartaa car payment ayaad ku dalban kartaa oo kaarka ayaa gelinaysaa USDT aad dhahdo xogta USDT-da ku soo baxayso oo TRC ERC BAB crypto bitcoin oo dogecoin ayagana keliya adreskan ayaad koobi leedahay dibna waxaa waaye weladkaaga ayaa tagaysaa ku bixi kartaa bank transfer crypto payment perfect money asna si lamid ah haddaad rabtid paypal haddaad rabtid inaad ku bixisana si lamid so option walba meeshaan aad ugu jeedid optionkaad rabtid aad dooranaysaa qaabka lacagta ugu bixin laheeday xogtaan aad bixinana kadib waa isku soo laaban doonaa insha allah saaxiib saa ujeediin hadda waa soo dhameeyey xogtii kulli so waxaa leeyahay lacagta waxaa rabaa inaan ku bixiyo perfect money ahaan inaan ku bixiyaa rabaa leeyahay so perfect moneygeeda dooranaa kadibna processkii kale ayaa dhameynayaa oo processkii markaad dhameysid meesha ayaa click saaraysaa so perfect moneygeeda gelinaa kadib isku soo laaban doonaa saaxiibyaal lacagtii ayaa soo bixiyey saa ujeediin wuxuu si toos ii keenay dashboard-keenii maadaama hadda lacagta soo bixiyey sidoo kale waxaa laga rabaa inaan sameeyo verification-kii so verification-kii waxay noqonaysaa laba nooc oo verification ay kaa rabaan mid waa qaybta koowaad oo ah inaad selfie ku sameyso documentigaagii tusaalahaan baasaboorkaagii inaad qabato baasaboorkaagii iyo wejigaagii inaad sawir ka qaado oo isku sawirto oo aad kadibna u dirto midka labaad ay kaa rabaan waxaa waaye ID-gii proof addresskaagii inaad asigana sameyso oo bank statement-gaad xareyso sidoo kale waxay kaloo kaa rabaan baasaboorkaagii iyo xogtaadii ayada sidoo kale inaad geyso sababta selfie-gan lagaaga qaadaya waxaa ognahay shirkado badan hadda forex fund iyo shirkadaha kaleba diskorkoodii ogeysiiskoodii sidaad ku aragteenbo in cabasho badan ay ka muujinayaan in xogta dadka qaar communitiyadoodii in dad kale ay isticmaalaan oo inta laga dhacay dad kale ay akooman ku furteen saas awgeedii marka waxay rabaan inay isku fiiriyaan qofka documentigan iska leh iyo qofka akoonka ku tirigareynaya inuu same yahay uu facekiisa same yahay sidoo kale waxay ku weydiin doonaan optical contact number oo ah haddii ay kaa shakiyaan in sawirkii aad soo dirtay iyo baasaboorkaaga kala duwanaado in qaab video call lagu soo wici doono kadibna ay qiimeyn doonaan in qofka saxda ay tahay wax sidan loo sameynaya keliya waxay tahay in la hubiyo qofka xogtiisii
inay xog saxan tahay uusan isticmaaleynin xog qof kale leeyahay ama baasboor qof kale uu leeyahay. So marka waxaan samayn doonaa verificationka wax weyn maaha. Waxaad samayn doontaa addresskaaga inta ku buuxinaysaa, kadibna waxaad gelinaysaa addresska kale ee meesha kale magaalada ka degan tahay, kadibna waxaad gelinaysaa nambarkaagii lagala soo xiriiri lahay. So nambarkii lagala soo xiriiri lahay markaad geliso, qaybtaanad imaanaysa waxaad ku xareynaysaa selfie holding up ID documents oo ah selfigii ama sawirkii aad ka soo qaaday adigoo wejigaagii iyo baasaboorkaagii hayo ayaad bartaan gelinaysaa. kadib waxaa imaanaynaa level 2 KCI. level 2 KCI ayaad ku dhufanaysaa. waxaad meeshan ku xareyn doontaa photo ID-gaagii, baasaboorkaagii, driver license-iga. sidoo kale qaybtan kalena waxaad geli kartaa proof address-kaagii ayaad ku xareynaysaa. kadib waxaa leedahay save, kadibna waxaa leedahay request verification. So markaad intaas samayso kadib waxaad email u diri doontaa emailka shaashadan kaaga soo muuqdo adigoo la wadaagayo lacagtii aad akoonka ku bixisay, hadaa perfect money ku bixisay, haddii PayPal ku bixisay, haddii crypto ku bixisay, waxaad emailkan la wadaagaysaa aad ku leedahay lacagtii aad bixiyey, verificationkii documentigiina waa soo diray, akoonka sida kale igu soo diro. So marka ayaga kuu process gareynayaan oo kuu fududeynayaan. haddii kale aad fahmi weysana telegramkeena kusoo biir, markii aad akoonka isla markii gadatabo aniga ila soo socodsii, anaaba kaa caawi karo oo la hadlayo. kadib markii verificationkaaga ay soo aqbalaan, documentigaaga soo aqbalaan, lacagtaadiina ay kaa helaan, akoonka ayay kuu soo diri doonaan oo akoonka waxaad ku heli doontaa qaab MT4 ah. sida caadigana 24 saac gudahood ay qaadataa inaad akoonkan ku hesho. So haddii linkiga iska diiwaan gelisid 24 saacadood uma baahnaa doontid insha Allah. mar allaala markii aad linka iska diiwaan gelisid lacagta bixisid si toos ah telegramkeena igu soo biir, aniga halkan igala soo xiriir, kadib aniga ayaa hawsha kugu gali doona, la hadli doona, akoonkaagii saacada ayaad ku heli doontaa. saaxiibayaal waxaan rajeynaa inaad qaabka isu diiwaangelintaad fahanteen, hadda kadibna si fudud isku diiwaangeli doontaan. muuqaalkan intaas aan ugu talagalnay insha Allah. Asalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakatuh.